maxaa dhahay gabdho walaalahayga maxay tahay inaad wax walba bilowaad u tihiin fitno walba adduunka ka jirta inaad bilow ka tihiin maxaa qasbay idinku ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda magaciina ku sameeyey maxay tahay dhibaatada adduunyada ku hay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا يوتيوب channel كي وانيغو هولاشين حفصة هالكاد إيغا داوانيسان وا حفصة channel الله وبرنامجكين وحاني سوق بي إسلانيغو هولاشين حفصة السيد إن شاء الله فضلا هدي آدكو عصب تهي جانالك سبسكرايب إيسار لايك تديريقلنا إيتهاي إن فكرة دادا كومنتي إيغوريب موضوع والبوات وباهنتهاي إن أنكسو دودا كومنتيس كوس إيغوريب إن شاء الله هايلابين إن أتصحاب دادا وشيرغاي سواد لو ذاكتو محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحودهاي وحاد نفتاada la jeceshahay la jeclaa walaalkaaga insha Allah sida maanta aniga aan kula jeclaado waqtiga aan soo burburinayo aan soo luminayo insha Allah sidaas isla mid ka fudud u sheergalay asxaabtaas si ay ugu faa'iideystaan insha Allah dabcan in mowduucan ka soo hadli doono maanta aan falanqeyn doono horna u ballan qaaday inaan ka soo hadlayo aan soo sheegay videogan hor u dhac aan soo dhigay YouTube-ka waa muuqaalka aan hadda codkiisani maqalsiinayo muuqaalka yariiska dara TikTok aan ka dhex arkay anigoo video dhigayo aada una xaruntii waan ka qiirooday sababtoo ah marka lagu dhaho maxaa gabdho waa wada jamac hal qof kali ma aha labo ma aha saddex ma aha afar ma aha guud waaye dadka dhan waaye hal qof ma ahan way mudan tahay inaan ka soo hadlo dad badan way igu sugayeen sabab gabdho wax walba xun aan hogaan ugu nahay horta aada ugu xumaaday wallahi bilaahi sababtoo ah marka la dhahayo badda hal malaaya uriye sidaan waaye hal qof amba labo qof xunaa la arkaa dadkii dhan way ku wada daysanayaan sida like isticmaalka social media ay isticmaalayaan hableena Soomaaliyeed sida qaldan ay u isticmaalayaan ay soo qaabinayaan jirkooda banaanka ay dhigayaan quruxdooda ay soo bandhigayaan taas ayaa koow ka ah fitno walba inaan u horseedno ma ogtahay gabdho haddii aan anagoo qaaqaaban aan soo dhigno noocyada kala duwan ee social media inaan ragga u soo jiideyno dunuub ma ogtihiin inaan raggii aan wadada ka lumineyno maxaa la dhahayaa rag xun aan magaalka joogaa la dhahayaa dhalinyaradii way xumaatay anagaa horseed u ah inay xumaadaan anagaa sabab u ah anagaa kasbanay inay xumaadaan dhalinyaradeena gabdho inna diin al-islaam diin yusra wa diin raxma diintan islaamka diin naxariis leh waaye diin fudud waaye wax oo adag anaga manugu soo oogin waxay nagu soo oogtay xijaabkan inaan xirano xijaabkanna inaan xirano anaga sharafteena wanaageeda noo tahay ma ogtahay wax walba intay qarsan yihiin ay faa'iido leeyihiin qiimo ay leeyihiin ma ogtahay shukulaatada yarka tusaale ama nacnac u soo qaado midka bacdu ku jira iyo midka aan bacdu ku jirin haddii lagu soo bandhigo amba labadooda lagu horkeeno ma ogtahay kan bacda ku xiran inaad qaadanaysid sababtoo ah kan bacda ku jira ayaa qiimo fiican leh kaas ayaa ah mid ugu qiimaha sareeyo ugu qaalisanaya adigana sidaas oo kale ayaa tahay inta xijaaban tahay aad qarsan tahay jirkaada ay ku qarsan yihiin ayaad qiimo leedahay ma ogtahay quruxda lagu sheegayo inay diinta tahay ma ogtahay quruxda lagu sheegayo inay asturnaanta tahay haddii aad mar asturan tahay waxaad tahay qofka dunida ugu quruxda badan ugu qiimaha badan ma ogtahay gabdho waxyaabahan xunxun aan sameynayno horta anaga ma ogtahay maxaa sabab nool keena adduunkan maxaa noolo keena balse waxaan aan sameynayno ma wax wanaag noo keena mise wax oo xumaan ah noo keena waa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala janno iyo naar bilaash uma abuurin jannada dad ayay rabtaa naartana dad ayay rabtaa dadkoo dhan haddii la dhihi lahaa janno ayay wada galayaan maba la abuureenba naarta maba la soo saareenba sidoo kale dadka dhan naar ayay galayaan haddii la dhihi lahaana jannada maba la soo ogeen sababtoo ah qof walba tacab ayay rabtaa naarta tacab ayay rabtaa jannadana tacab ayay rabtaa idinkan hadda waxaad tacbanaysaan naaraad tacbanaysaan naartana daday rabtaa gabdho ka soo laabta wadadan xun aad ku socotiin ku soo laabta ilaah subxaanahu wa tacaala u soo laabta bil barakeysan oo Ramadaan ayaa foodo lagu soo fuulaa insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxaan ka baryayaa inaan ani nafs ahaanteyda aan sabab u noqdo
inaad wadada wanaagsan kusoo toosaan inaan ani sabab noqdo ayaan rajeynayaa insha Allah gabdho mowduucan insha Allah sidoo kale mowduuc aad u weyn ayaan kasoo bandhigi doonaa balse intaan ka gaarsiin ayaan idinku soo gaarsiinaya asxaabta iyo sugayn insha Allah kusoo dhawaada channelkayga waa anigoo Xafsa haddii aad ku socotay subscribe like share la wadaag asxaabtaan insha Allah next video xiga insha Allah mid xasaasi leh. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.